kadib markii dhawaan ciidamada booliska degmada Afgooye ay burburiyeen guryaha ku yaalay xaafadda Imbagaati ee degmadaasi ayaa waxa idaacada kulmiye soo gaaray maanta qaar ka mid ah qoysaska halka deganaa intooda badan qoysaskan ayaa waxa ay sheegeen in dhulka laga burburiyay ay degnaayeen muddo ka badan 30 sano isla markaana ciidamada booliska iyo maamulka degmada Afgooye ay kula dhaqmeen wax ka baxsan sharciga maadaama ay garaaceen sida ay sheegeen waayeelada iyo caruurta ku nooleed xaafadda Imbagaati anigoo ah Abduqaadir Meey Cabdile ku magac dheer bibiyo oo degan degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Imbagaati oo hadda laga burburiyay marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed in xaafadaheena la burburiyay aad loo xumeeyay hadeertaana banaan cid la aan fadhina waxna lagu qabtay aysan jirin cid hadda dawlad ka tirsan inay noo timaado waxyaabaha anagu nagu dhacay war maxaa see wax ka yeelna inagu tirin aysan jirin aan ku dhibaataysanahay dhibaatadaas waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed inay waxayna baaq inagu soo jawaabto dadka dhibaatadaas nagu sameeyay dawladda ka tirsan dawladda waaye maamulka dawladda ka tirsan waaye oo Afgooye waxay nagu yimaadeen Cabdibiliyaal cagafyo korkaana timid guriyaashin dada dhaawacmay dada ku dhintay hanti baba u jirta baanta waa ku baabaaday meesha waxay guri lahayn meeshan lagu baabi'iyay wax oo noo yaala ma jiraan oo degan Afgooye gaar ahaan xaafadda Imbagaati maalmaha kamid ah oo la burburiyay si arran darro aan loo burburiyay maal hantu waxa la wahiyaari la burburiyay ummadda roogda la jirdilay la barakaciyay roobka da'ohay banaanka taagan wax loo qabtay aan lahayn abasho waxaan ka nahay ummadda Soomaaliyeed waa in la ogaata caalamku waa in la ogaada ciidamada degan Afgooye oo intaas dhib taadani Suubiyan maal taliyaalsho al'aankan wax jawaab aan ka hayna jarna madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Farmaajo waxaan ogeysiinayna oo sheegayna adduunweynaha in lagu tuntay oo xadgudubi aan elaniyo Suubi taasna oo sheegayna waa in si degdeg ah arintan lagu soo farageliya rooba naga da'ohay jidada dhararagnahay waxaan halkan ka cadeynayaa kana soo jeedo oday kamid ah ka soo jeeda degmada Afgooye qaybta Imbagaati xaafadda la burburiyay xaafadaasi waxaa iska lahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed iska lahaa beertii gabdhaha iyo wiilasha la dhihi jiray waxaan deganahay 32 sano aan deganahay waxa yimid wiil siyaad barra u dhalay wuxuu yiri ana dhulkaan iska leh dhulkaan keen dukumiinti aan niri dukumiinti la imoo baan niri uu naga tagay mar dambe haddana noo yimid dukumiintigii noo keen baan niri waxu jawaab nagama siinin ka bacdi shabaab buu nagu dacweeyay shabaabadkii daba tagnay shabaab waxa la yiri dukumiinti kaasa nimankan dhulka laga kicinaya wax dukumiinti uu waayay ninkaas waraaqdan aan gacanta ku haayo waxaan noo saxay taliyaha asluubta waan u tagnay dhulkii aan ugu haysaanay wuxuu yiri waraaqdan qaata cidin hor istaagi karta male waraaqda dadka shacabka odayaasha dhaqanka degmada Afgooye ayuu u dhiibay waraaqdii aan haysay nagala jaajahay midaan kale koobi ahayd waa soo qaadanay waxaan leenahay nagala soo gaaro waliba dadka muslimiinta asxaabul tawxiidka anaga soo gaaraan dadka waxay yaalaan banaanka roob baa ku da'aya dib baa maraayo wax ka dawid male dawladda ka wada imaadin waxaan ka cabanaynaa si dadkii hore sheegaba degmada Afgooye dibka nagu soo gaaray oo Imbagaati naga soo gaaray ka hadlaynaa waxaan la yiri Soomaalidu anagu ka hadli ma rag dadka hore ka hadlay dad baa lacag la dhex taagan oo dhulkeena ay gataan rabaan waxaana ulbira iyo eesar ma dhumaan dadka dhulka garanaya oo lacagta nagu baxshay waxaan leenahay dhulkeena ka leexda hadda dad islaamtiin xaawo ibaabe iyo waliba Maryan Maxamed Aadan mar ay hadleen ay waxay ka dalbadeen dawladda Soomaaliya in ay wax ka qabato tacaadiyada loo geystay isla markaana la siiyo hoy ay degaan anigoo degan oo macnaa oo waxba aan ka barayno beeraley iska oo masaakiin oo guriyeen ku jirno baldoos lagu karkeeni markaas suuqaan aan gacanta way iga dilaacday waatana iligtana baldoos geed ay soo riday ay jabtay ayaanta ilaa hadan la xanuunsanay waayeel oo 8 jir ilma aabahood la dili ilma kala aboona intaas oo dhan aan minkii ku hayna hadan meel aan aadna male beeraas oo macnaa duurka ee meesha waa iska jirnaa waxaan haysana male maxaa dhahay degmada Afgooye dhibaato san uu gaartay ciidanka Soomaaliyeed oo degmada Afgooye dhibaato inoo geystaan Sirbiya lagu tumay guriyana lagu jugdhabay wax aan haysan hanti xool male
haddii muslimna ma jirto walaalaheen muslimiinta inuu su gargaaraan mid kalena dowladda waxaan ku codsaneynaa si degdeg inay micnaa dhulkeen nagu soo celiso ama inay meel noo yeesho dowladda federaalka dowladda maamul goboleedyada kulliyo farmaajo wasiirada xildhibaanada walwalba oo dowladda in shaqeeyo maxay tahay mas'uul ayna leh oo dadka shacabka muslimiinta mas'uul ku ah oo Soomaaliya dadka mas'uul ku ah wali ku codsadaan inay arrintan fargeliyaan oo dhibaatadana deerti wali ni deerti ogaan wali ni deerti ma ooshiini sababtoo ah lankii inta la wargeliyay la arintun idaacad iyo media iyo aan hay maxay tahay social media wala injarna la argaan oo hadal ilbahay walwalba la ka hadalo inana wargeliyay islaan hadii singatin dhulka anile maxkamada in hukunti sharciga waakay dhulkay hal in ku kooy dool ka saw laakiin doolan iyo aan hay ul mogdinana dhaw ul mogdan tinani dilafada wala inay faylaha inay maxay tahay arintun la fargeliyay ul mogdinana dil dad la dilay jaran dad ilkul gudeediya jaran dad la tumiya jaran dad daawac